كان داون سوا مقالبات دم قتيبي وفريسة وتلانية مقال فرنسا وركجرون قشاق من دعوة صقادنا إذا بشيء تاي سدح طبعا بشي لحاد لواتي سدح وركجرون قشاق ما دعوة حروانا كسوقاته horta marka hore aad iyo aad ayaan ugu xumahay qalalaasihii shalay ka dhacay caasimad ku sheega baraabe ee shabeellada hoose waxaan aad iyo aad ugu xumahay nimanka isku sheegayo inay yihiin xildhibaano inay yihiin senataro ay ka soo jeeda koonfur galbeed sida anshaxa ka fog ay ugu hadleen warbaahinta waa wax aan wanaagsaneyn cid kastana wanaagsaneyn qofka markuu mas'uul yahay waxaa loo baahan yahay mas'uuliyadda oo wado sharafteeda iyo xushmadeeda inuu leeyahay dad isku sheegaya inay yihiin xildhibaano oo ka mid ah golaha shacabka oo maanta dadka meesha isku dilay ay yihiin dad Soomaali ah oo looga baahnaa dadkii isdilay horta marka hore inay wada taxsiiyaan inta ku dhimatayna ay yiraahdaan Ilaahay oo raxmado inta dhaawacana Ilaahay ha u booydhayo meesha ka dhiilaayeen waxay sameeyeen qofka markuu sameeyay waxa la rabaa horta qalalaasaha meesha ka dhacay maxuu ka bilowday dhibaatada maxaa keenay waa isla joogi jireen ebel way joogeen ciidamadan meesha ayay rigli u joogaan ma aha ciidamo dhan iska gashay ma aha ciidamo beeleed sida ay sheegayaan ciidamadan waa ciidamadii dagaalka ka bilaabay muqdisho ilaa dhulkaas shabaabkii waxa la rabaa xildhibaanka markuu wax eedeynayo waxaa loo baahan yahay adilla macnaa wuxuu waxa ku eedeynayo inuu miiska soo saaro horta dhibaatada maxay ka bilaabatay xildhibaanada inay ka hadlaan ahayd wixii dhibaatadan dhaliyay inay sheegaan ahayd laakiin ma aha in ay carabaabaan qabiil ayaga ciidamada ay ka keeneen baydhabo yihiin ha is weydiyaano ciidamada ay ka keeneen baydhabo Japan ma aha Ethiopian ma aha Kenyan ma aha waa ciidamo qabiil ah ee baydhabo laga soo arooriyay shabeellada dhexe qabiilada ka soo jeedo halkaga ma jiro boy waxa la rabaa qofka inuu xisaabtamo ciidamadii militariga ahay oo intaas soo dagaalamayay dad badan ku waayay asxaabtooda ku waayay maanta in la yiraahdo maleeshiyo waxaas waa idab daro waxaas waa waxaan la qaadi karin waxaas waa waxaan ku sameyn baarlamaan sheeganayo in uu yahay baarlamaan macnaa ka socdo maamul dhan la yiraahdo koonfur galbeed qabaa'il badan degan idinka ciidamada maanta aad leedihiin daraawiish waa leedihiin kulligood waa qabiilkiina waay shabeellada hoose hawiyaa degan boqolkii 80 hawiyaa degan ciidamadiina kuma jiraan hawiya u soo dagaalamay dhulkaas aad arkaysiin oo la qabtay ayaga qabteen hawiya intaad garabsa lahaydeen aad gaashaan ka dhig lahaydeen dad wax isku falaayo wax taraayo ayaa isu muujinaysaan waxna ma tiraysaan taas waxay ku caddahay ciidamada aad ka keenteen baydhabo dhulka ma soo marsiinina diyaarad ku qaadeen meesha ku geyseen kuwa diyaarada ku qaadeen meesha aad ku geyseen ciidamadii meeshaas u soo dagaalamayay 15 sano ee la soo dhaafiyo la dagaalamayay soo dagaalamayay inaad dishiin ayaad meesha u tagteen muku nabadgelaysiin waa maya dadka aad disheen saraakiisha aad disheen waa 3 sarkaal iyo booliis kadib waa markay dhibaatada dhaxayso
meeshaad loo baahnay in aad wixii isku dhaqdaan aad wixii u aragtaan macnaa qalad dhacay qaladka sidii loo sixi lahaay aad ka hadli lahaydeen ayaa waxaad ka hadasheen in meesha mooryaan ay joogto ciidamada joogana ay hal beel yihiin war idinka maxaa tihiin ciidamada aad meesha keenteen maxay yihiin waa hal beel laakiin ciidamada aad meesha aad ku sheegaysaan kulligood military waaye asxaabtoodana horey ugu waayeen marka haddii nii la keenay in aad dadka meesha ku dishaan aadna rabtaan shabeellada hoose canshuurteeda inaad ku noolaataan wax iskeenaya maaha waxaa la rabaa xildhibaanadan aflagaadada meesha la yimid waa inay apologize bixiyaan waa inay raaligeliyaan saraakiishii la laayay waa in ay yiraahdaan khalad naga dhacay waaye haddii kale meeshaan shabeellada hoose la yiraahdaa 80% anagaa degan markeedu horena magacay lahayd markeedu hore magacay ay lahayd ma ayna ahayn digil iyo mirifle ma ayna ahayn mirifle idinkaa keensateen digil iyo daama la dhihi jira dhulkaas waa la yaqaanaa digil iyo daama gorgaatay ayaa degan weligoodne dhibaato kama dhicin laakiin magacaan isxambaarka aad wadataan ayaad rabtaan inaad wax ku qaarijisaan warka ka warrama waxaanii la ogolaaday ceelasha biyaha in canshuur ka qaadataan ceelasha biyaha ayaa joogo ceelay maa joogto raxweynta aan sheegatiin maa joogto war niman yahow waxaad tihiin niman aan dantooda aqoonin waxaa wanaagsan qofka inuu caqligiisa iyo maskaxdiisa ay soo laabato oo dadka uu ku dhex nool yahay qiimaha uu ku leeyahay uu fahmaayo war waxaa wax lala yaabaa idinkaanii la quudiyaa aqalaanii la dhisay muqdishaanii la dhex dejiyey waxaad keentay inaad tirahdeen magaaladan waxaa looga hadlaa afeelaay meel kasta haddii la tago suuqa bakaaraha waxaa looga hadlaa afeelaay inaad aad tirahdeen war haddii lagu soo dhaweeyey oo lagu quudiyey afka eelaydii maa hadda waxaa ka dhiganaysaa wax kale inay ay yihiin waxaan aad uga xumahay aad iyo aad uga xumahay qofka hadduuna garanaynin miisaankiisa aad ayay u dhibaato badan tahay warka ma raba inaan idinku dheereeyo gadaalaan warka raaci doonaa bal hadda xildhibaanadii waxa ay duubeen bal ila daawada waxay ku hadlayaan bal dhageysta haddii ay yihiin nimankaas niman u qalma xataa inay baarlamaan ay ku jiraan waxay ismoodeen aan gara waaye balna la dhageysta waxaan rabnaa si wada jira horta inaan u tacsiyeyno shacabkii waxba galabsan ee shalay degmada Baraawe lagu weeraray oo dad wata dharka ciidanka shaarka dawladda wata ku weeraray waxaan leenahay inta dhimantay Ilaahay u naxariisto intii dhaawacantan Ilaahay u boogadhayo sidoo kale ciidamada daraawiishta oo iyagana koonfurka Soomaaliya iyagana ciidankii meeshaas naftooda ku waayay Ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu jannadii firdaws Ilaahay geeyo inta dhaawacan inuu Ilaahay si dhaqsile Ilaahay u bogsiyo markaan inta ka nimaano maanta halkan waxaan ku soo saarnay baaq iyo cambaareyn annagoo ah xildhibaanada iyo senatarada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda koonfurka Soomaaliya waxaan cambaareynaa falkii foosho xumaa ee shalay ka dhacay 12kii Juun 2023 degmada Baraawe ee caasimadda koonfur galbeed Soomaaliya dhacdadaasi oo ka koobnayd weerar lagu qaaday madaxtooyada koonfur galbeed iyo ciidamada daraawiishta koonfur galbeed iyo shacabka degmada Baraawe weerarkaasi oo geystay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed weerarkaasi mas'uuliyadiisa waxaa qaadaya taliyaha ciidanka SNA ee ku sugan degmada Baraawe oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cilmi Jimaale Xoroga wuxuu khalkhal geliyay xasiloonida degmada Baraawe isagoo caqabad ku noqday horumarka iyo nidaamka dawladnimada koonfur galbeed Soomaaliya isagoo huwan shaarka dawladda muddadii 10 sano u dambeysay dhibaato ku hayay shacabka degmada Baraawe sarkaalkaas magaciisa kor ku xusan wuxuu ka soo horjeedaa jiritaanka dawladda koonfur galbeed
waxaa markhaati madoonto ah in gobolka Shabeellaha Hoose si joogto ah loogu dhibaateeyo shaarka dawladda. taas waxaa caddayn u ah in taliyaasha SNA dhammaantood ay yihiin dad isku beel ah. sidoo kale waxaan cambaaraynaynaa ciidanka ATMIS ee ka howlgala degmada Baraawe. waxay si cad ugu wareejiyeen airportka degmada Baraawe maleeshiyaad beeleed sheegta inay yihiin SNA. waxaa si bareer ah ugu wareejiyeen askari dhaawac ah oo saarnaa gaarigooda kadibna hortooda lagu dilay. waxaan dawladda Soomaaliya oo hormuud ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu baaqaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo qaado ciidan beeleedkaasi iyo taliyaashooda kadibna tallaabo waafaqsan dambiyada ay geysteen loogu qaado. dawladda Soomaaliya waa inay ixtiraamto wada shaqaynta dawlad goboleedka maadaama dalku uu federaal yahay. dulmi soo jireen wax la qaadan karo ma ahan, waxayna dhaawac ku tahay wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. waxaan la ogolaan doonin ciidan beeleed sida hadda ay yihiin ciidanka meesha jooga. baaq ku wajahan beesha caalamka waxaan ka codsanaynaa in baaris madax bannaan ku sameeyaan ciidanka ATMIS ee ka howlgala degmada Baraawe iyo falkii ka dhacay degmada Baraawe oo ahaa in askari dhaawac ah gacantooda lagala baxo laguna dilo hortooda. wabillahi tawfiiq. waxaan filayaa inaad xildhibaanada warkooda aad dhegaysateen. suuragal ma tahay nin mas-uul ah ee golaha shacabka ku jiro in uu sidaas u hadlo? suuragal ma tahay nin mas-uul ah ee golaha shacabka ku jiro oo laba nin oo Soomaali ah kala xigsanayo? suuragal ma tahay nin xildhibaan ah oo loo soo doortay dadkiisa iyo dalkiisa inuu badbaadiyo, dad askar ah oo military ah oo intaasoo sano u soo dhimanayay inay meeshaas ka daafacaan nimanka la leeyahay Al-Shabaab oo dhulkaas loo daafacay, maanta ay rabaan caasimadeena waa inay raadaan oo bikalaam le ah oo weligood inay yimaadaan inay rabin oo raba inay haddana dadka meesha ku gumaystaan, haddana dad ayaga qabiilkooda inay keensadaan, dad qabiilku tilmaamayo, dadkiina dilayo, ayagana ku dhahayo nimankaas waa inaa maxkamad la saaraa. war waxaan idin leeyahay haddaad tihiin koonfur galbeed jid khaldan ayaa ku socotiin. canshuurta ugu badan aad maanta ku nooshihiin ilaah wax nooleeyo Shabeellaha Hoose laga qaadaa. wallaahi canshuurta ugu badan aad ku nooshihiin meeshaas laga qaadaa. dada ilaah idin adoomiyey, dada waxa idin adoomiyey ninkan la leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh Maxamuudow bal arag wax laga dhaxlay bal arag. weli ayaad ku sii indha caddahay waxyaalahaas iyo wax la mid ah inaan ku sii socotid. Hirshabeelle iyo adaas shalay abuurtay fitnada ka taagan waa ujeedaa. fitnada ka taagan dad aan isqaadan karin, aan isxambaarsan karin, aasoo xambaarisay inaad kala dhigtid nama rabtid. Shabeellada Hoose banaadir ka mid ahayd, meeshaasaa geysay inaad dadkii lagu laayo ay haddana dadka laynayo ee aflagaadana soo istaagaan meelaha ayagoo xildhibaano sheeganayo waa wax lala yaabo. laakiin waxaan leeyahay koonfur galbeed way ka badbadinaysaa. waxaan idin leeyahay dalkan waxaa soo xoreeyey nimanka aad qabiilka ku tilmaamaysiin. 80% ciidamada waa ayaga. waxa naftooda u horay oo wadankan u dhintay nimanka aad leedihiin qabiil waaye waa ayaga. nimanka saraakiisha aad xabadda ku leynaysiin waa kala qabiil, isku qabiil ma aha. haddii aadan dheheynina waa hawiye. meeshaasna ma joogaan dad hal qabiil ah oo inuu dad laaya rabo. marka iyo Baraawe inuu dhibaatada ka dhaceysay waa la ogyahay cid dabada ka wadisaan bare. marka waxaan idin leeyahay idinkay idin wanaagsan tahay in aad
cagaha dhulka dhigataan haddii kale meesha aad ka timadeena ku wada naqnaysiin kulligiin shabeellada hoose rag baa degan iskale beero ku leh dhul ku leh xoola daaqsin ay u tahay war dadka haddaad rabtiin inaad magac iyo hadal aad dadka ku buubisaan waxaas ma shaqaynayaan laakiin aniga waxaan idin ilahay aniga ma jecli in dadka la kala qoqobo laakiin kala qoqob hadduu yimaado nin la arka meeshuu yahay ayuu noqon doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh